waxaan ku bilaabayaa magacayga Najmo Shooriye Maxamed waxaan kamid ahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku suganahay meeyga kamid ah Hiiraan meeshan magaceeda waxa la dhahaa Xasan Raqi waxaan u imaaday argagixisada al-shabaab inaan ka saarno annagoo u dhan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama oo gumaaday ku hayaan maatada iyo shacabka iyo intii ku nool oo dhan deegaamadan maadaama bay ku hayaan dhibaatooyin shacabka Soomaaliyeed inaan garab istaagno oo wax walba dhibay ku hayaan aan ka dulqaadno aan u taaganahay haday nafigu jirto inaan ka qayb noqdo oo meel walba al-shabaab ku jiraan aan ka saarno diyaar aan u nahay shacabka waxaan leeyahay intii hadda ma taqaanaa horta waxa hadda howlgalka nagula jiro Allah guuleeyaan leeyahay wixii naga dambeeyana sida anaga wadada mari doonaan rajaynaa dhibaatooyinka caruurta iyo waayeelada iyo dhalinyarada intaba ay ku hayaan oo u dulqaadan waayay waxaan u joogaa hadda wax walba dhibaato ay ku hayaan inaan ka saarno maadaama ay shacabka iyo marista iyo waayeelada ay dhibaato ku hayaan inta ku hayaan in ka badan inaan ku hay doono na alla daba joognaan u sheegaya wallahi intaan wadaan soo marnay ama dal soo marnay waa soo xureynay inta noo dhiman waa xureynayna waxaan leenahay inta noo dhiman guul aan rajaynayna inaan guuleysano annaga sidaan shacabka aanu garab siinayna ayagana garab ay soo siiyaan ayna garab joogan waxba aynay luqyada ku jirin ay soo baxaan ciidanka xoogga dalka